madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilalkii ka qaaday gudoomiye ku-xigeenadii maamulka iyo maaliyadda iyo howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir. Ibraahim Cumar Mahadalle ayaa wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha xilkii gudoomiye ku-xigeen iyo maamulka maaliyadda gobolka Banaadir looga qaaday waxaana xilkaasi loo magacaabay Axmed Xasan Iimaan. sidoo kale isla wareegtadan waxaa xilkii looga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido waxaana xilkaasi loo magacaabay Cumar Cali Cabdi. madaxweynaha ayaa markii uu arkay inay jirto baahi loo qabo in loo magacaabo maamulka gobolka Banaadir ku-xigeenada arrimaha maamulka iyo maaliyadda iyo howlaha guud markii uu tixgeliyay khibradda shaqo ay leeyihiin mudanayaasha xilkan loo magacaabay ayna u leeyihiin khibrad buuxda howlaha loo magacaabay waxa uu soo saaray xeerkan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u rajeeyay labada xubnood oo u magacaabay in alle u fududeeyo mas'uuliyadaasi waxa uuna kula dardaarmay inay si hufan u gutaan howlahooda.